Gudoomiyaha Guddiga Farsamada Dowladda Federaalk Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ahna Wasiirka Dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in maalinka koowaad ee horumar laga gaaray shirka guddiga uga socda magaalada Baydhabo kaas oo xalay qayb ka mid ah lasoo gabagabeeyay. Shirka Guddiga Farsamada ee Dowladda Federaalk Dowlad Goboleedyada Gobolka Banaadir wuxuu maalinkii koowaad noogu soo ilaaday jawi wanaagsan, howlihii nolo idmadana waan ku guda jirnaa ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu sheegay in rajo weyn ay jirto in isu imaatanka uu si rasmi ah u bilowdo isla markaana afgarad lagu soo idleeyo wax walba oo jira. Warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in la taliyaha madaxweyne Farmaajo laga saaray shirka Guddiga Farsamada magaalada Baydhabo. Cali Raage oo ah la taliyaha madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Farmaajo ayaa waxaa xalay laga saaray shirka Guddiga Farsamada Dowladda Federaalk Dowlad Goboleedyada Gobolka Banaadir uga socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. La taliya Cabdi Cali ayaa gelinkii dambe shalay ka soo muuqday shirka uga furmay guddiga looga hadlayo qodobada la isku mari waayay shirkii madaxda ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb kaas oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah xubnaha Guddiga Farsamada ee ka socda dowlad goboleedyada dood ay ka keeneen in Cabdi Cali Raage shirka uu qayb ka noqdo. Cabdi Cali Raage oo ah la taliyaha madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ayaa markii hore qayb ka ahayn liiska uu shaaciyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee xubnaha Guddiga Farsamada kala matalaya heer federaal, heer dowlad goboleed iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Guddiga la magacaabay ayaa sidoo kale xalay gudoomiye u doortay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo shirkaasi gudoomiyay. Guddiga Farsamada oo ka kooban 14 xubnood ayaa shalay waxaa shir looga arinsanayo qodobada la isku mari la'yahay ku yeeshay magaalada Baydhabo kaas oo weli ka soconaya magaaladaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan la qaatay Guddiga Farsamo ee qabanqaabada shirweynaha wadatashiga qaran kaas oo shir uga soconayo magaalada Baydhabo. Xubnaha guddiyada oo ka kooban 14 xubnood oo ka kala socda dowladda federaalk, dowlad goboleedka gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida loo socodsiin karo. Gudoomiyaha Guddiga Farsamada Dowladda Federaalk, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ahna Wasiirka Dastuurka Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in madaxweynaha xubnaha guddiga uga warbixiyay doorashooyinka horey u qabsoomay isla markaana dardaaran u jeediyay. Xubnaha guddiga ayaa maanta la filayaa inay sii wadaan shirkooda isla markaana ay ka soo saaraan qodobada ay ku heshiiyeen si loogu gudbiyo madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka. Ugu dambeyntiina waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 sida ku cad xog ay baahisay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya. Khubarada caafimaadka ayaa rumaysan in Soomaaliya ay hadda wajahayso mowjadii labaad ee COVID-19 isla markaana loo baahan yahay in dalka si weyn looga wacyigeliyo khatarta cudurkan. Kulan ay yeesheen mas'uuliyiin dowladda ka tirsan oo ay ka mid yihiin Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyo sidoo kale Wasiirka Caafimaadka Fawziya Abikar Nuur ayaa looga hadlay ka hortagga iyo sidoo kale la tacaalidda cudurka. Si loo xakameeyo faafidda cudurka COVID-19 waa in wasaaradda caafimaadka ay qasab ka dhigato xirashada maaskaraha, waa in muddo 2 toddobaad ah karantiisho dadka ku safraya ama u safraya dalka UK maadaama Soomaaliya aysan la tacaali karin nooca cudurka ee faafay. Dhinaca kale Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka COVID-19. Wasaaraddu waxay sheegtay in maalinkii shalay ahayd guud ahaan cudurka COVID-19 laga helay 90 ruux oo ku sugan Muqdisho, Puntland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle isla markaana ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurkaasi. Markaana akhbaaraadka caalamka haddii aynu eegno, Donald Trump ayaa mar kale lagu dhagan yahay afhayeenka aqalka Koongareeska dalka Mareykanka. Nancy Pelosi ayaa sheegtay in ay hirgelin doonto guddi ka madax bannaan golahaasi oo baaritaan ku sameyn doona weerarkii horaantii bishii Janaayo ee sanadkan lagu qaaday aqalka Capitol. Weerarkaas oo ay qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump sida la rumaysan yahay. Warqad ay soo qortay xildhibaanada aqalkaas ayay Pelosi ku sheegtay in guddigaasi uu shaqeyn doono oo uu baaritaan ku sameyn doono si la mid ah sidii weerarkii labaad ama 2 sano ka hor lagu qaaday daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga ee dalka Mareykanka. Waa khasab in la ogaado xaqiiqda iyo wixii dhacay ayay tiri. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump
oo lasoo golajoojiyey aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa lagu waayay dembi ah inuu ka dambeeyay weerarkii gacanka hadalka ah ee lagu qaaday aqalka Koongareeska. Hase yeeshee, qaar ka mid ah xubnaha Jamhuuriga iyo sidoo kale kuwa Dimuqraadiga ayaa taageeray in guddiga madax bannaan uu baaritaan ku sameeyo weerarkii ay ku dhinteen dad gaaraya 5 qof. Guddiga ayay sheegtay in baaritaan uu ku sameyn doono weerarkii dhacay, faragelinta uu Trump ku sameeyay si nabad xilka looga wareejiyo, iyo sidoo kale si booliska aqalka Capitol iyo laamaha amniga ay ugu diyaariyaan weerarka. Wixii ka soo baxa baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa, ayay hadalkeeda sii raacisay. Waxaa kaloo ay sheegtay in iyada oo laga duulayo baaristii hordhaca ahayd ee General Honoro uu Koongareesku u baahan yahay in dhaqaale dheeraad ah lagu bixiyo si loo xaqiijiyo amniga golaha iyo sidoo kale xubnaha. Madaxweyne Trump ayaa markii labaad taariikhda Mareykanka ka badbaaday dacwad galaafan lahayd mustaqbalkiisa siyaasadeed kadib markii la waayay tiradii loo baahnaa si dacwadda loogu soo oogay ay ansax u noqoto. Golaha joojinta Donald Trump ayaa taageeray 7 ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga, taas oo keentay in isla xisbigaasi ay u kala qaybsamaan 2 dhinac. Senator Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa diiday dacwadda lagu soo oogay Donald Trump, inkastoo markii ay dhammaatay uu dib ka sheegay in madaxweynihii hore uu mas'uul ka ahaa weerarkii lagu qaaday aqalka cad ee Mareykanka.